السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowow ninkii fiqid meersi ahaa maanta filim baa lagu yeedhiyey kowdhe godkiisa biyo uu soo galeen waa lagu qayliyey waa lagu buuqay aaday dhigtaa loogu qayliyey se wax u dhinacna kuu sheega dhegeyso. ninka horta wuxuu ka qayb galay shirweyne ay soo qaban qaabiyeen ururweynaha shaqaalaha ee dalkan Jarmalka. saaxiibkayga meesha lagu casuumay asigi iyo ku-xigeenadiisa iyo xukuumaddiisaba wasaaradda oo shaqada iyo shaqaalaha xitaa waa socotay faqawbaas. saaxiibkayga meesha markii lagu soo dhabeeyay af Soomaali wuxuu keenay barnaamijkii ahaa in wax laga bedelo ama reform in lagu sameeyo Arbeitsstundaha isbuuci la shaqeeyo. halka 40 saacadood la shaqeyn jiray isbuuci wuxuu sheegay in 70 saacadood la shaqeeyo. wuxuu taagan yahay horaba u soo shaqeyn jirnay dalkeen ugu lahaa haddana waa yeelan karnaa. okay waxaa la sheegaa in 1918 meelahaasi in shaqaalaha dalkan Jarmalka shaqooyin badan ay shaqeyn jireen. okay kadibna hadda wuxuu rabaa asiga inuu meeshaas u noo celiyo. saaxiibkayga waa lagu qayliyey waa lagu fuuriyey filim baa lagu yeeriyey waa baarlamaanka Soomaaliya soo xasuustaan ku dhahay. teeda kale kadib markuu asiga meesha ka degay oo warka dhan laga dhageysan waayay waxaa meesha soo kortay wasiiradii oo علشان شقالها iyo shaqada qaabilsaneed oo ah Faqaw Pass waa SPD. Faqaw Pass waxay sheegtay reformkaasi inuu shaqeynaynin wax jir uusan ahayn 8 saacadood ka badan lama shaqeyn karay tiri bandadi waa loo saacay iyada waa la soo dhaweeyay bandadi laakiin saaxiibkayga koobaha lagu tabaco koobaha. sidoo kale meesha waxa ka hadashay Faqaw Fahima oo ah hogaamiyaha ururweynaha shaqaalaha dalkan Jarmalka. ayadana waxay sheegtay in meers aan laga ogolaanin wax reform la dhahayo 8 saacadood ka badan shaqaalaha inay si shaqeynaynin because waxay tir uma ogolaanayno meers inuu noo celiyo 1917 okay in shaqaalaha lagu tunto shaqooyin badan ay shaqeeyaan marka ninka waawaalayan ku dhahay 70 saacadood qof shaqeynaa intuu jooga 70 saacadood yaa shaqeynaa waa qofba si loo shaqeyn xitaa ma aqaanan ku dhaasal weydiina si loo shaqeyn lahaa.